بسم الله. walaalkay walaashayay raggii iyo dumarkii maanta waxay u baahan yihiin wax u kala garnaaqa. Aayaddii Ilaahay dhexdooda keenayna waa ku heshiin waayeen. Dumarkii aayaddii qayb bay goosteen, raggiina aayaddii qayb bay goosteen. Way isla fahmi waayeen intay isku yimaadaan inay aayadda wada akhriyaan, islana fahmaan. Qof walba xaqa laga saarayna uu ka qaato. aayaddaas waa aayadda fi suurati nisaa ku jirta ee Ilaahay uu leeyahay fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mathna wa thulaatha wa rubaac fa in khiftum allaa tacdilu fawaaxida. dumarkii waxay goosteen fawaaxida, raggiina waxay goosteen mathna wa thulaatha wa rubaac. waxaan aaminsanahay haddii la oran lahaa dumarka tasbiixda maxaa laydinkugu soo daraa, inay oran lahayeen fawaaxida noogu soo dara. tasbiixda u badan oo maalin iyo habeen ay sameeyaan fawaaxida ay noqon lahayd. ragga haddii la oran lahaa qaybo badan oo kamid ah tasbiixda maxaa laydinkugu soo daraa, inay oran lahayeen iyaguna noogu soo daraa mathna wa thulaatha wa rubaac. oo rag badana mathna wa thulaatha wa rubaac ku tasbiixsanaya la arki lahaayeen habeen iyo maalin. waxaan leeyahay marka intaad isku timaadaan oo wada fariisataan oo gogosha soo wada fariisataan, bal aayadda qur-aanka ta isla wada akhridaan, isla fahantaan, qof walba xaqa adiga kaa saaran ka qaado. laakiin aayaddan qur-aanka sidii cunto saxan ku jirta lakala dafdafayo hala iska daayo, wax wanaagsan ma ahanin. assalaamu calaykum.